markaasuu haddana u dhiibay in isku tallaabta lagu qadbo wayna kaxeeyeen ciise markaas isagoo sita isku tallaabta ayuu u kacay meeshii dekada la yidhaahdo oo af cibraaniga lagu odhan jiray golgota meeshaasay isku tallaabaha ku qudbeen isaga iyo laba kale midba gees ciisena dhexda bilatosna wax buu qoray oo ku dhejiyey isku tallaabta dusheeda waxaana ku qoraa ciisihii reer nasareed bocorka yuhuudda haddaba yuhuudda badideed ayaa qorniinkaas aqriday waayo meeshii ciise isku tallaabta lagaga qodbay waa u dhoweyd magaalada oo qorniinkii wuxuu ku qoraa af cibraaniga iyo af romaaniga iyo af gariigga sidaa daraaddeed wadaadadii sare oo yuhuudda waxay bilatos ku yidhaahdeen aqorin boqorka yuhuudda laakiin qof kana yidhi waxaan ahay boqorka yuhuudda bilatos ayaa ugu jawaabay waxaan horay ayaa qoray haddaba askartii markay ciise isku tallaabta ku qadbeen dharkiisay qaateen oo ay 4 meelood ka dhigeen askari weliba meel buu qaatay qamiiskiisiina way qaateen qamiiskii meelo kama tabayn dusha iyo hoosta sidaa daraaddeed waxay isku yidhaahdeen yaynan kala jeexin laakiin aan u saamiridinno kii heli doona inuu noqdo qorniinka oo leh iyagu waxay dheegsadeen dharkaygii qamiiskaygiina way u saamirideen haddaba ciyaarahaas askartii baa samaysay waxaa ciise isku tallaabtiisa ag taagnaa hooyadiis iyo habaryartiis maryam afadii qoladaas iyo maryamtii reer magdala sidaa daraaddeed ciise markuu arkay hooyadiis iyo kii xirta ahaa oo jeclaa oo ag taagan ayuu hooyadiis ku yidhi sidee yahay waa kaa wiilkaagii markaasuu kii xirta ahaana ku yidhi waa taa hooyadaa oo saacaddaas dabadeed kii xirta ahaa ayaa gurigiisii u kaxeeyey markaas dabadeed ciise isagoo garanaya wax kasta inay dhammaadeen in qorniinku ahaado ayuu yidhi waan haraadsanahay markaas waxaa meeshaas yidhi weel qal ka buuxo sidaa daraaddeed geed sboonji la yidhaahdo way qalkii ka buuxiyeen markaasay kor saareen geed husab la yidhaahdo oo afkiisa ku dhoweeyeen haddaba markii ciise qalkii qaatay ayuu yidhi waa dhammaatay markaasuu madaxa foorashay oo ruuxii bixiyey sidaa daraaddeed yuhuuddii inaan meydadku sabtida isku tallaabaha sii saarnaan waxay bilatos ku baryeen in lugaha laga jebiyo oo meydadka la qaado waayo waxay ahayd maalintii diyaargarayska oo maalintaas sabtidaas waxay ahayd maalin weyn haddaba askartii waa timid oo ay lugaha ka jebiyeen kii hore iyo kii kale oo isku tallaabaha lagula qodbay isaga laakiin markay ciise u yimaadeen oo ay arkeen inuu durba dhintay kama ay jebin lugihii laakiin mid askartii ka mid ah ayaa dhinaca ciise waran kaga wareemay oo markiiba waxaa ka soo baxay dhiig iyo biyo oo kii arkayna wuu marag furay maraggiisuna waa run wuuna garanayaa inuu run sheegayo inaad idinkuna rumaysataan waayo waxyaalahaas waxay u dhaceen inuu ahaado qorniinka leh lafihiisa midna la jebin maayo oo qorniin kale wuxuu leeyahay way arki doonaan kii ay wareemeen